dayax gacmeed ayaa u duulay dhulka agtiisa wuxuuna sii daayay shay hawada galay. Muddo kadib, gudaha kaymaha bartamaha Ameerika, Dutch oo ka mid ah ciidanka gaarka ah ee ciidanka Mareykanka iyo kooxdiisii samata bixinta ee militariga, Mark, Billy, Blaine, Boncho iyo Hawkins ayaa loo xilsaaray inay soo badbaadiyaan saraakiil ay kooxo nabadiid ahi afduub u haysteen. Wakiilka CIA-da Dylan oo hore u ahaan jiray kumaandooska saaxiib horena la ahaa Dutch ayaa loo xilsaaray inuu kormeero kooxda, inkasta oo Dutch diidanaa. Kooxdu waxa ay daaha ka qaaday burburka diyaarad helikobtar ah iyo 3 meyd ah oo maqaarka laga saaray, kuwaas oo Dutch u aqoonsaday ciidamada gaarka ah oo uu shakhsi ahaan u yaqaanay. Kooxda Dutch ayaa gaadhay xerada fallaagada oo ay lahaayeen kooxaha kacdoonka wada oo ku jira sarkaal sirdoonka Sofiyeedka ah. Kadib markii ay iska hor yimaadeen Dutch, Dylan waxa uu qirtay in howlgalku ahaa qorshe CIA-du ku doonaysay in xog laga helo saraakiisha la qabto iyo in qaybta militariga ee hore u dhimatay la waayay toddobaadyo ka hor intii aanay howlgalkooda fulin. Kadib markii ay qabteen Anna, kooxdu waxay u gudbeen wadadii ay kaga bixi lahaayeen kaynta, iyagoo aan ka warqabin inuu ku raad joogo walax wax ku arkaysa heerkulkooda. Anna way baxsatay oo waxa eryaday Hawkins, laakiin waxa qaaday noolihii. Wuxuu u turay Anna, laakiin waxa uu dilay Hawkins oo uu jiitay meydkiisa. Dutch waxa uu qabanqaabinayaa ugaarsiga noolahan, markaas oo Blaine lagu dilay hubka iftiinka ah ee noolahani wato. Isagoo xanaaqsan, Mark waxa uu bilaabay inuu furo rasaas, kuwaas oo noolihii uu ku dhaawacmay. Waxa uu ka tagayaa dhiig cagaaran oo ifaya. Unug ayaa dib isu urursanaya oo garwaaqsanaya in wax kaynta ku jira ay ku daba jiraan. Billy waxa uu ku adkaysanayaa in dilaagu aanu ahayn bini'aadam, hadalkaas oo shaki badan keenay. kooxdu waxay habeenkii sameynaysaa xero iyagoo dabino dhigaya dhammaan jihooyinka. Dabinada noole ayaa galay. Markna waxa uu dilay doofaarka duurjoogta ah isagoo u maleeyay inuu yahay noolihii wax ugaadhsanayay. Jahawareerka awgii noolihii ayaa xadaya meydkii Blaine. Dutch waxa uu garwaaqsaday in cadowgooda uu isticmaalayo geedaha si uu u safro. Isku daygii ay doonayeen inay ku soo dabaan makhluuqa ayaa guuldaraystay, taasoo ka dhigaysa Boncho dhaawac. Mark iyo Dylan waxay eryanayaan noolaha, laakiin waa uu ka adkaanaya isagoo labadoodaba dilaya. Noolaha ugaarsadaha waxa uu ka daba imanayaa intii kale isagoo dilay Billy iyo Boncho wuxuuna dhaawacay Dutch. Dutch waxa uu gartay in nooluhu aanu dilayn dadka aan hubaysnayn, sidaas darteed waxa uu Anna u diray helikobtarka iyadoo aan hubaysnayn. Makhluuqa ayaa Dutch u raacdaynaya webiga, kadib qalabkiisii isqarinta ayaa xumaaday. Makhluuqa oo hadda muuqda waxa uu in yar u jiraa Dutch oo dhoobo ismariyay. Tan awgeed araggiisa heerkulka ayaa hoos u dhacay. Ugaarsadaha ayaana ku guuldaraysanaya inuu arko Dutch, hore ayuuna u sii soconaya. Dutch waxa uu garowsaday inuu dhoobo u isticmaali karo si uu isu qariyo. Marka uu makhluuqan uu madaxyada ka urursanayo meydka, Dutch ayaa isagu farsamaysanaya hub dabino weerarna ku qaadaya noolahan. Dutch waxa uu waxyeeleynayaa qalabka uu xidhan yahay ugaarsaduhu, waxa uuna u geysanayaa dhaawacyo fudud, balse waxa hareereynaya noolaha. isaga oo Dutch u aqoonsan cadow u qalma. Nooluhu waxa uu iska tuuray maaskaradii iyo hubkii iftiinka oo uu la galay dagaal gacan ka gacan ah. Dutch waxa uu ku dhow yahay in laga adkaado, laakiin waxa uu ku burburinayaa makhluuqa oo ku hoos jira dabin uu u dhigay. Iyadoo makhluuqu sii dhimanayo, Dutch waxa uu weydiinayaa waxa uu yahay, isna waxa uu ugu soo celinayaa isla su'aashii iyo hadallo aan la fahmi karin. Ka hor inta uusan daanin qalab isburburin ah, isagoo si aad ah u qoslaya. Dutch waxa uu cararayaa wax yar ka hor inta uusan qalabku qarxin, taasoo keentay daruur qiiq ah. Ugu dambeyntii waxa diyaarad helikobtar ah ku qaaday taliyihiisii iyo Anna. Filimkani halkaas ayuu ku dhamaaday. Fadlan haddii aad doonaysid inaad muuqaalo noocan oo kale ah oo badan daawatid, fadlan subscribe saar kanaalka, like-na nooga tag si aad u caawisid in kanaalku uu koro.